halkani ma magaalada Hargeysa mise waa London haddii Hargeysa tahay maxaa sababa in tiro lagu qiyaasay 85% meheradaha ku yaala sumadooda ama astaantooda loo bixiyo afaf qalaad gaar ahaan Ingiriisiga afku waa sawraca u gaarka ee lagu garto bulsho afku waxa weeye waa hidde marna waa sawraca iyo sumada ay dad u gaara oo lagu garto magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale arkamaysid board ama astaan meheradeed oo ka maran af qalaad ka aan magaciisu ahayn qayb kamida boardka ayaa ku qoran erayo qalaad Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo oo hormuudka kulliyadda afka Soomaaliga dhaqanka ee jaamacadda Hargeysa Gaariye waana cilmi baadho ku xeel dheer bixinta afka Soomaaliga waxa uu qeexayaa dhibaatada taagan waxaad arkaysaa oo maanta Hargeysa kaaga muuqda magaalooyinka kale maantagin Hargeysa oo kaliya oo magaalo madaxdeeda board kaliya oo ku qoran af Soomaali waa dhif waa loo tartamaya afafka shisheeye aanu ma garanaya albaxnimada Hargeysa boqolkiiba waxaan oran karaa 95 ama 99 af Soomaali bay ku hadashaa dadkeedu inta af Ingiriis taqaana waa xabadaasi boqolkiiba xabad yaa loogu talagalay marka makhaayad ama hotel ama meel wax laga iibsado wax lagu qoriyo af Ingiriis yaa loogu talagalay in akhristaan maanta bildan hadda magaalada gudaheeda socoto qof shisheeye ka soo horbixi maayo yaa loogu talagalay marka dukaanka ay mariya iibinaya ama duruucda iibinaya lagu qoro magac shisheeye lagu qoro yaa loogu talagalay islaamu magac dukaankii heblaayay lagu duruucda inageeyo ma kooro laakiin magaceedu marnaba ku sheegmayso marka taasi waxa weyn inaga ayaa ka mas'uula dawladda lafteeda horena waanu sheegay dawladdu waxa weyn qodobka lixaad ee xeerkeena loo ay dadku boqolkiiba 79 u codeeyeen wuxuu sheegayaa inuu afka koobaad ee dalkan yahay af Soomaali afka labaad waa Carabi afafka kale hadii loo baahdo uunba la adeegsan karaa okay gaadiidka dawladda waxa ku wada qoran GT waa government transport waa Ingiriisi marka Soomaali waxa geela duqdiisu durdurisay aarinkiisa maxaad mooday dawladdeena haday cayn ka tahay maxaad ka filaysaan marka dadkii qaar kamid ah dadka haysta meheradaha loo bixiyay magacyada afka qalaad ayaan weydiiyay sababta ugu bixiyeen waxaan ugu bixiyay ninka meherada iska leh walaalkayga weyn ayaa Turkish style wuxuu ku soo bartay Turkiga waxba ku soo bartay marka sababtoo halka wuxuu abaal uga dhigaya magacooda inuu meheradaha ku qoro magac kale oo Soomaaliya oo aad u bixiso miyad awood weyn kulli wadoq niga weyn ku dhacay magacan magas group sababta ugu bixiseen waa maxay sababta waa brand name yani business ka brand name baa loo sameeyay mar walba waa brand name hadad ku sheegto Soomaali muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa yani magac ay u khaasada yani meherada waxaan weydiiyay magac kale oo Soomaaliya oo dadku wada fahmayo inaad u bixisaan maxaa talo meeshan horta waxa ownerka iska leeyahay manayeen aad bay nooga shaqaystaan magaaladooda ogtiyo ka bacdina iyaga xaq u leeyahay bedelaan iyana ku soo wadaan laakiin imka waxay u baahan yihiin inay si develop gareeyaan magacan suuqa u galo magac yar oo qurux badan oo suuqa u galo oo magasna raacsan tahay magaca meheradu waa iskay haddana khaldanayn macnihiisu waa cirka maxaad ugu bixiseen marka alashaan waxa weeyaan sky technology marka la leeyahay horta meherad walba waxay leedahay wax la dhaho logo iyo waxay leedahay iyo waxa weeyaan waxyaabo kale wax business terminology baan ilaaway kelmadii lagu oranayay oo waxa weeyaan oraah yar bay leedahay kan meherad company walba marka anaga oraahadeedu waxa weeyaan where technology and brings to life technology brings to life alashaan technology ayaa noloshii makaranaysa kugu soo gudbinaya oo kaliya meheradaha ee waxa jira dugsiyo waxbarasho gaar ahaan kuwa gaarka loo leeyahay oo la baxa magacyo aan Soomaali ahayn agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abakar ayaan weydiiyay bal inay jirto siyaasad wasaaradda waxbarashada uga taala tayeenta afka Soomaaliga horta saan ku sheegay siyaasadda waxbarashada waxay si cad u qeexaysaa marka dugsiyada hoose dhexe in af Soomaali lagu dhigto kuwa sarana lagu dhigto marka English iskuulada dawladda kuwa private ka marka iskuulka maadaama private yahay de luqadu doon horta waa lagu dhigi karaa muhiimadu waxay tahay in Soomaaligii ardayga la baro oo arday Soomaaligii garanayo de aqoon ahaan Soomaaligii yaqaana uu soo baxo
sidoo kale agaasimuhu waxa uu sheegay inaanay weli jirin siyaasad wasaaraddu ay leedahay oo loogu talagalay magac bixinta dugsiyada dalka siyaasad cad oo arinta magaca ka jirta imika ma jirto laakiin marka siyaasadda waxbarashada imika dib eegista lagu sameeyo la dhameystiro ee dib loo eego waxyaalaha runtii la eegi doona ka mid tahay arrimaha ma jirto guddi ama cid u xil saaran ilaalinta afka Soomaaliga oo xukuumadda ka tirsan iyadoo maalin walba ay soo kordhayaan erayo cusub oo aan lahayn erey u dhigma gaar ahaan tiknoolajiyadda waxaana taasi keentay in ereygii qalaad sidiisa loo qaato sidoo kalena inta badan xiriirka qoraalka ee dhaxmara suuqyada ganacsiga ayaa Ingiriisi lagu qoraa marka laga hadlayo hoos u dhaca afka Soomaaliga meelaha la dhaliilo waxa kamid ah saxaafadda Maxamuud Cabdi Ducaale waxa warbaahinta Soomaalida ku soo jiray in ka badan 40 sanadood waxaan weydiiyay Barinus barbar dhigo saxaafadii hore iyo tan maanta marka loo eego afka Soomaaliga waxa laga baran jiray afka oo ilaalin jiray laba qolada waxbarashada oo ama iskuulada lagu dhigto ama ma garanaysaa wax lagu qoro meel iyo qolada warbaahinta oo idaacadaha iyo jaraa'idka iyo waxa soo telefishinna ma jirin barigaadii wax laga sheego waxa lagu qori jiray jaraa'idku carabi iyo ingiriisi dabeedna xidigta Oktoobar soo baxday 1972 wixii ka dambeysay may baanayn afku dadka Soomaaliduna afka way isla wada yaqaaneen in yaroo af magaala uma lagu kala qaybsanaa misalan ra'yi dhac waan iri iyo waan iri laakiin waxeeda kale waa isla garan jiray af suuqdigana de idaacadaha lama keeni jirin laakiin imka idinka waxa idinku dhacday waa la burburay waa la baaba'ay dabeedna nin waliba wuxuu doono ayuu la soo baxay Xasan Galeed Home Cable TV Hargeysa